qof hubaysan ayaa masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand waxa uu toogasho ku dilay dad ku dhow 50 ruux waxaana sidoo kale dhaawacay tiro kale oo dad ah 48 ruux oo dhaawaca ayaa la gaarsiiyay cisbitaalada kuwaas oo dabiib lagu wado shakhsiga weerarka geystay ayaa la aaminsan yahay inuu u dhashay wadanka Australia dadka toogashada lagu dilay waxa ku jiray muwaadiniin Soomaaliyeed oo laga aqoonsaday Sheekh Muuse Nuur Caraale oo ahaa macallin dugsi Sheekh Abdulqaadir iyo Cabdullaahi Aadan Diiriye iyo wiil yar oo la sheegay inuu ahaa 6 sano jir halka wiilkaas aabihi oo lagu magacaabay Aadan Diiriyana dhaawac uu soo gaaray waxaana suuragal ah intaasi ka badan in waxyeelo ay ka soo gaartay weerarka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام كماشي جوجانبا وإسلاميين الله يا رحمة الراحمين الله يا رحمة الراحمين الله يا رحمة الراحمين وعمل الله وضع صعده إلهي هاونا حريستو مسلمين تماليش جوجانبا أدونك dadka lagu dilay New Zealand masaajidada inta loogu galay gacanka xaq daran ay dishay ilaahu naxariisto jannana Allah ka waraabiyo kitaabkoodana gacanta midig Allah ka siiyo Allah ya raxmar raxiim annagana gadaashooda ilaahayna ma fidnaayo adduunku wuu qasan yahay dhibaato badan ka jirta dad aan waxba geysanin cibaado u tagay masaajid in maxaa la dhahayo toole iyagoo cibaadadooda rabaan inay gutaan Allahooda baryaan waajibaadka la saaray ay gutaan ayaa dad u soo galay ay dhibaato u geysteen ay xabado ku fureen iyagoo xataa aanan haysanin wax ay isku difaacaan marka waa wax la maaragtay laga naxo qalbigana aan la siin karin dadka badanaana video ay wada wareejinayaan meel kastaba waa video laga naxo in la arko dad masaakiin ah wuxuu doonaba ha ahaado muslim ha ahaado kristaan ha ahaado yahuud ha ahaado majuusi ha ahaado oo dabka caabuda ilaahay ma banaynin in xaqdaro lagu dilo dad qof aanan ku haysanin inaad dib u geysato masaajid ha ahaado maaragtay kaniisad ha ahaato sida hadda meelaha qaarkood ay ka dhacaan oo kale ay maaragtay dadaa shiica ah bam loo gelinaa la leeyahay waxaasoo dhan waa wada qalad ilaahay ma uusan banaynin in bini aadamka iyo xayawaankaba dib loo geysto in meelaha qaarkood adduunka looga bartay inuu dhiig ku daato hadda waxay noqotay meelo qaarkood oo inta la soo cararay oo nabadgelyo laga soo raadiyay badaha lagu soo baaba'ay dhulka lagu soo baaba'ay sida Liibiya la sheegayo kale magafa dad uu qabsaday marka ummaddu way dhibaataysan tahay qaasatan Soomaalida ilaaha u naxariisto ilaahna wada naxariisto xukun maanta la dhihi karana maxaa la dhahayo toolo xukuna jiro meel lagu noqday leedahayna ma laha waa maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa meel lagu noqdana ma laha sababtoo ah wadanka waxa ka dhacay waa aragteen qaraxa ka jira musuqmaasuqa ka jira dhibaato badan ka jirta walaa dawladan toosneen walaa baarlamaan toosneen walaa shacabaan toosneen waa masaa'ib Allah keenay marka hal samro haloo daayo dadka abniga ah in ay hooshooda gutaan wax ma aragtay argudsi ah ama wax ma aragtay dhibaato kale yaan laga shaqeynin dadka masaajidka ku dhintayna waa ahlul janno waa dad ahlul janno ah marka dawladda ay hoos joogaan biidnillaahi alkariim inay cadaalad ka shaqeyn doonto aadaan idin salaamaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى